Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Kusoo dhawaad qaybtii 8aad ee sheekadii Waasuge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood. qaybta 7aad sheekada waxay inoo joogtay Waasuge way u caddaatay inay reer Muuse ka suura galin sooryada oo sugayay iyo sida uu doonayay. qaybta 8aad waxay ku bilaabmaysaa dhowr ayaamood kadib ayuu Waasuge habeen Jimco ah fiid horadii wuxuu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa wuxuuna ka tirsan yahay dariiqada Axmadiya. markaasuu intuu aaday goor dambe ka soo laabtay. haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? wuxuu yimid gurigii oo ay reer Muuse ku casuumeen saaxiibayaashood oo isugu jira rag iyo dumar. dhalinyarada Soomaaliyeed oo naagaha caddaanka ah qabo cidna kama maqnayn, qaar kalena way ka soo qayb galeen casuumaadda. Waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar iska looxshay garabkeeda ku hurdo. dhalinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu Waasuge ku xasuustay wiilkii dhaanraac ahaa oo uu baabuurka kala soo raacay Jawhar. duqii cabaar ayuu dhalinyaradii isha la raacay isagoo isweydiinaya talow meeshu ma tahay aqalkii Muuse. markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayuu wiilashii midkood intuu soo fiiriyey ku yidhi, duqa ma iska soo gelaysaa aqalka? markii intaasi dhacday ayuu Muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofka lala hadlaya inuu aabihiis yahay. yidhina, aabe ma soo geshid? maxaad albaabka u taagan tahay? markaasuu Waasuge shaki baxay inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. duqii gudaha ayuu soo galay. Muuse ayaana dhinac socda oo ugu waramay inay dadkan yihiin saaxiibayaashiis, Maariyana ay casuuntay. inta ay dhalinyaradii ag marayeen ciyaartii sideeda ayay u socotay. Waasugena laabta ayuu ka hadlayay oo wuxuu leeyahay, casuumaadanu waa canke, culimo iyo waayeel kalena midnama joogaan. ari lama qalin oo anfac kale lama sii diyaarin, horena leeguma sii sheegin. waa cajaa'ib, casuumaaduna waa canke. duqii waxa u caddaatay inay casuumaaddu tahay caways dhalinyaro. kadib markuu arkay sida wiilasha iyo gabdhaha isku qabqabsanayaan, Waasuge wuxuu goostay inuu dhalinyarada u jeediyo waano iyo wacdi si ay cawayska iskaga daayaan. isla markiiba aadaan ayuu Waasuge ku dhuftay. Allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. Muuse aad ayuu aabihiis uga carooday, laakiin wuxuu sameeyo garan waayey. cayaartii way joogsatay, dhalinyaradiina way wada aamuseen. markaasay Waasuge agtiisii ku soo wada arooreen. Maariya dadkii dhexdiisii ayay hadba dhan u ordaysaa. gabdhihii kale oo caddaanka ahaana mid waliba ninkeedii ayay su'aal ku furfurtay ayadoo sababta weydiinaysa. markuu aadaankii dhammeeyey Waasuge wuxuu dhalinyaradii u jeediyey hadal waano ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya ayuu u tirshay masaafadii wacdiga ahayd ee Sheekh Axmed Gebyo, kuna saabsanayd inuu aadanaha ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ah oo Ilaahay abuuray naguna hareeraysan. isagoona yidhi, webiga kii warwareegsanaa iyo samada waaban marnaan wab soo dhahayn, baxarka waalan ilaahna waabiyey, waaga baryaaya marna la weynayn. kuwa waleyli waduur akhraayaan ayagu way iskula waana qaateen. wejigay waysla daa'imayaan, wakhtigaa galay wataray tukanayaan, watar dibigiisii wardiyey akhroodaan. waalidka weerarsamay dhahayaan, waaxiday wiilal jannaad ka tuugaan. kuwaasi waa weliyaal eebo, widkii dhibkiis daar jannay waraabaan. markay intaasi dhacday ayay dhalinyaradii qaybsantay oo u kala baxday, qaar wacdigii iwaanadii ay saameeyeen iyo qaar ka carooday si weyna uga xumaaday cayaarta laga carqaladeeyey. kuwii ugu xariifsanaa wiilasha ayaa markii dambe isku dayay inay duqa xasil wax ugu sheegaan, ayagoo dantooda tahay inay barnaamijkooda dhammaystirtaan habeenkaas. laakiin wiil yar ayaa xaajadii qarribay oo intuu si lama filaan ah hadalkii u qaatay. duqii ku yidhi, adeer annagu intaan yarnahay oo aan adduunyo joogno waan tumanaynaa, aakhirada aad sheegaysidna yeel. Waasuge aad ayuu weertaas ula fajacay ilaa ay hadalba ka soo bixi waayey. markuu xoogaa aamusnaa ayuu intuu yaab madaxii la ruxay dhowr maroo kale ku celceliyey hadalkii oo yidhi, aakhirana yeelkeed, aakhirana yeelkeed. hadal waano ah ayuu Waasuge ku dheeraaday, wuxuuna dhalinyaradii tusaaleeyey inuusan Ilaahay dadka u abuurin inuu qof weliba ku kaco wixii ay naftiisa jeclaatay. markuu in badan waxyaalaha diinta nafarta u faaniyey, waxyaalaha ay naga reebtayna u caayey, ayuu ugu dambayntii dhalinyaradii u tiriyey beydad ka mid ah masafo kale oo Sheekh Axmed Gebyo ugu
ugu faalooday waxyaalaha aakhiro qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan falin intuu adduunyo joogo, wuxuuna yidhi rugtii qiyaamo haddii la rogsado rifata naar ahna raab ka soo go'o, kuwii rogayayna reebi waayaan, rasuulka suuban oo ku reed maro haddaa ka raacraacsatiiska kaa rido, risaaladii horaadan raacine rabbigay weynoo raalli kuu noqon, ragow hadduu qalbiga u rafaadaa. Dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay, sidaas ayayna ku kala tageen. Maariya aad ayay ugu xumaatay barnaamijka habeenkaas ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna dhexda ka xiratay caro daraaddeed. habeenkaas reer muuse islama hadlin, sidaas ayaana waaga ugu baryey. waa suge qolkiisii ayuu iska seexday asagoo ciil bistiis ah, asal ahaana ka xun waxyaalaha ay dhallinyarada ku kaceen, sababna ugu dhigayo edabdarre ay horseed u yihiin reer muuse. subaxdii dambe wuxuu qof weliba soo toosa isagoo cabursan oo si dhib ah hadalka ugu soo baxayo. kadib markii la quraacday ayuu muuse sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhaca u bilaabay aabihiis. maariyana kama qayb qaadan sheekadaas, maxaa yeelay waxay si weyn u dareensaneyd inay isfahmi karin iyada iyo duqa waa suge. muuse markuu sheekadii bilaabay waxa uu barbar yeelay bal inuu si rasmi ahayn ee iska maandhugad ah aabihiis ugula tashado xaajo oo maalmahaas kula talamayay. maariyana ay la ogeyd. muuse markuu is yidhi duqii caradii way ka degtay ayuu si qabo u yidhi, aabe waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado ra'yi aan goosannay aniga iyo maariya kuna saabsan inaan shaqada dowladda ka tago dabadeedna iska aadno waddanka maariya. muuse oo hadalkii wata ayaa wuxuu yidhi, waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kallifaysa amuurtaas, maxaa yeelay waxaan nahay dad doonaya nolol casri ah horena u bartay. waxaa intaas noo dheer mar haddaan dibadda tagno welwel kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay waxaan mar walba warqado ka helaa maariye aabaheed oo ah nin warshado leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan asagu shaqayno. markuu intaas yidhi muuse ayuu waa suge hadalkii qaatay kuna bilaabay, maandhow aad ayaan hadalkaadii u gartay, haddaanse dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaan wixii uu waalid iyo walaalo lahaa. tan labaadna muusow waan ka warhayaa oo dhallinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda wax iskula soo barateen si farxad iyo isku kalsooni leh ayay dalkoodii ugu shaqaystaan, waalidkoodana ugu warhayaan uguna ducaystaan. wuxuu waa suga soo hadal qaaday wiil oo aabbihiis yaqaanay, muusena ay wax isla soo barteen. muuse ayaa hadalkii duqa u adkaysan waayey, markaasuu intuu si caro ku jirta ugu dhex galay yidhi, aabe marnaha ka baqin inaad dhibaato la kulanto anigoo nool, waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuu soo diro, haddaad jirro yar isku aragtidna waxaan kugu daaweynayaa dibadda intaa tigid kuu soo diro. inta uu muuse faanka qubayo waa suge feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman wuuna ka rajagaaban yahay. muuse oo faankiisii ula shubaya ayuu waa suge hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyay hadal iskugu jira waano iyo canaan intaba. ugu dambayntiina wuxuu waa suge hadalkiisii la kaashaday murtida soomaalida, asagoo muuse u tiriyey gabaygii xaaji aadan afqalac oo ahaa saban tegey mid weli soo socdiyo saaka waxa jooga saddexdaa waqti baa xaal adduun lagu sifeeyaaye, soo noqod ma jiro shalay wixii saadufoo dhacaye, waxa saa dambaytiyo berina waa su'aal maqane, waxay taladu ku suuban tahay subaxaad joogtaaye. markuu wada hadalkii heerkaas gaaray ayuu muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, waa sugena wuu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay. waa suge 4 faatax ayuu muuse u maray, wuxuuna ugu duceeyey inuu dalkiisii ka shaqaysto, dadkiisana la noolaado, waalidkiisana ka ducaysto. sidaas ayaana hadalkoodii subaxaas ku dhammaaday. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 8 ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.